Mauritania sida rasmiga ahna la yiraahdo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Mauritania waa mid dhacda waqooyiga galbeed ee qaaradda Madoobe ee Afrika. Waa mid saaran xeebta badweynta Atlantic isla markaana xal leh dalalka Morocco iyo Algeria oo dhanka waqooyi kaga beegan, halka koonfurta ay kaga beegan tahay Senegal. Waxaana sidoo kale koonfurta iyo barigaba ka xiga dalka Mali. Badka uu ku fadhiyo dalkan waa wax ka badan 1 milyan oo kiiloomitir isku wareega, taasoo ka dhigaysa dalka 11aad ee ugu dhulka weyn Afrika, halka uu yahay dalka 29aad ee ugu dhulka weyn caalamka. Wuxuu 2 jeer ka weyn yahay dalka Faransa, halka uu 3 jeer ka weyn yahay dalka Germany. balse dalkan boqolkiiba 70 waa mid qalalan oo saxara ah. Wuxuuna dalkan leeyahay dhul beerashada ku wanaagsan isla markaana boqolkiiba 60 dadka xoogsatada ay ka shaqeystaan. Sidoo kale wuxuu dalkan qani ku yahay oo laga soo saaraa dahabka. Wuxuuna leeyahay 9 god oo laga qodo dahabka, waxaana ka mid ah godadkaas midka labaad ee ugu weyn caalamka. Dhulka saxaraha ah ee dalkan waxaa laga helaa meel la dhaho isha saxaraha oo ah dhul ay culimada geologiga qiimeeyaan. Waxaa lagu qiyaasaa badka ay ku fadhido 50 kiiloomitir, waxayna u ekaataa marka hawada sare laga soo eego isha bini'aadamka. Dalkan baaxadda weyn dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 5 milyan, waxayna 5 milyan leeyihiin dhulka weyn Nigeria oo ah dalka ugu dadka badan Afrika isla markaana dadkiisa lagu qiyaaso 200 oo milyan. Dadka Mauritania qaarkood waa kuwa Soomaalida aan laga aqoon, waana kuwa isugu jira Carab, Amaaziiq iyo Afrikaan. Dalkan magaciisa asalka ah ma ahan Mauritania, balse waa magac uu u bixiyay gumeystihii Faransiiska. Waxaa la dhihi jiray dalkan Shanqiid, wuxuuna magacan ka yimid masjid ku yaala magaalada Shanqiid ee dalkan. Waxaana sidoo kale dadka dalkan la dhihi jiray Shanaaqidah. Dastuurka dalkan waxaa ku qoran inuu dalku leeyahay 4 luuqadood isla markaana luuqadda Carabiga tahay mid rasmiga ah. Dadka dalkan sida Soomaalida oo kale ayay yiraahdaan boqolkiiba 100 muslimiin ayaa nahay, waxayna boqolkiiba 25 ku nool yihiin magaalada Nouakchott oo caasimadda dalkan noqotay 1960kii. Dalkan wuxuu qani ku yahay ariga iyo lo'da. Marka tiradooda la eegana dadka dalkan qofkiiba waxaa ku soo aadaya 5 neef. 1959kii ilaa laga soo gaaray 1971kii dalkan waxaa soo maray 7 madaxweyne oo sharci ah, laakiin kulligood kuma jirin mid xilka hayay wax ka badan 2 sano. Xitaa qaarkood ayaa xilka hayeen 1 sano afgambiyadii badnaa ee dalka ka jiray awgeed. Balse haatan dalkan waa mid aan shaashadaha caalamka iyo kuwa Carbeed aan intaba lagu arkin, isla markaana siyaasad qabow ay ka jirto. Waxay Carabtu dalkan ugu yeeraan dhulkii malaayiinta gabya, laakiin dadka reer Mauritania waxay yiraahdaan waa dhulkii malaayiinta siyaasi. Wuxuu ka mid yahay dalkan dalalkii ugu dambeeyay ee mamnuucay is-adoonsiga, wuxuuna dalkan is-adoonsiga sharci darro ka noqday 1981kii. balse waxaa la sheegaa inay weli 90,000 oo qof ku nool yihiin nolol u eg is-adoonsi. Gacanka Nouadhibon ee dalkan waa mid ka mid ah qabuuraha ugu waaweyn ee doomaha iyo maraakiibta, waxaana lagu arkaa 300 oo markab ama doon. Dumarka dalkan waa kuwa u dabaaldega furiinka. Waxaa weli lagu arkaa caadadan magaalooyinka waaweyn ee dalkan, ayagoona dumarka marka la furo qabsadaan xaflado laga dheelayo oo weliba laga heesayo, farxadna laga muujinayo. Ninka markuu naagtiisa furo waxay durba bilowdaa qabanqaabinta xafladda ay ku dabaaldegayso, ayadoo isugu yeerata asxaabteeda. Xafladdan waa ay dhigtaan xitaa haddii hal dalaaqa lagu furo, ayagoo ku heesa dalaaq agteena mushkilad kama ahan. Sidoo kale dalkan waxaa qiimo weyn ka leh dumarka caylan, ayagoona ragga dalkan badankoodu dooqoodu yahay dumarka burburan. Gabadha marka ay yar tahay ayaa lagu bilaabaa raashinka lagu caylo, weliba mararka qaar waxaa la geeyaa goobo cayiman oo dumarka lagu cayliyo. Hooyooyinka dalkan waxay gabdhahooda ku qasbaan cunnada, maadaama gabdhaha dhuudhuuban dalkan looga arko kuwa aan guurka u diyaarsaneen.